مغولي تغيا هاي هالكي هوري انت وقيعيل يبني سرح ولي انت ومغولي تغيا هاي هالكي هوري انت وقيعيل يبني سرح ولي أبيجي وهتادي أنت تهولي سيو مرتوغات عيل تاي هذا الخوض الراديو كون قوضي برشي. السلام عليكم ولا الواقبر Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dadweynaha la wadaago qiso igu dhacday oo dhab ah waa tan qisadii oo aan soo gaabinayo marka hore waxa aan ku noolahay dalka Kenya waxaan isbaranay wiil markay taariikhdu ahayd 2015 bishii labaad 26keedii waxaana na dhex maray jacayl si xad dhaaf ah ayaan u jeclaaday asna waxa uu i tusay jacayl anna waan aaminay inta badan waqtiga waan wada qaadan jirnay intuu shaqada jiro maahe inta kale waan wada joogi jirnay intuu iga maqan yahayna waxa aan ku wada xiriiri jirnay telefoon ani jacaylka aan u qabo wuu igu siyaadayay marba marka ka dambaysa awal waxaan wada degenayn hal xaafad laakiin hadda waan kala fogaanay markaan ka soo dheeraaday jacaylkaygii waxaan dareemay cidlo saasoo ay tahay waxaan jeclaa inaan markasta arko ama codkiisa maqlo markii dambe waxa yaraaday kulankeenii markii dambe waxa aan ka wada xiriiri jirnay telefoonka kadib wiilkii xiriirkii uu gaabsaday maalin ayaan wacay oo waxaan dhahay maxaa kugu dhacay waxa uu dhahay waan mashquulsanahay waxaan dhahay maxaa kugu dhacay oo ku mashquuliyay wuxuu dhahay hooyo ayaa iga xanuunsanaysa waxaan dhahay ilaahay ha caafiyo saasoo ay tahay waan wici jiray mar walba isaga ima soo wici jirin laakiin ani wax xumaan ah uma qaadi jirin waayo waxa uu ii sheegay waan aaminay maalmo kadib maamadii way dhimatay maalin ayuu ii imaaday waxa uu dhahay inaan ku guursado ayaan rabaa anna waan ka aqbalay wuxuu dhahay culays ayaa i saaran ee wax yar isug waxaan dhahay waa maxay culayska ku saaran wuxuu dhahay waa arrin family waxa uu igu dhahay isug bishaan ama bisha kale anna waxaan dhahay haye baryo kadib waa uu isoo wacay waxa uu dhahay seetahay waxaan ku dhahay waan fiicanahay waxa uu dhahay abaayo waxaan rabaa inaan guursado oo adi iska cafido waan naxay saa noqday ilaahay oo kaliya uunba ogaa waan weydiiyay maxay tahay guurkan degdega ah waxa uu dhahay abaayo familkayga ayaa gabar igu daray xilligaasna waxay ahayd xilligii aan guurka ku ballansanayn waxaan dhahay waa i qiyaantay noloshayda ayaa ku dheeshay mar dambana ha isoo wicin waayo waan adkaysan waaye marka walaalayaal ila taliya inuu ilaahay niyadayda ka tirtiro assalaamu calaykum حقوق جعيلكو هيدي حسكيغا كدورسنا حقيقة قفكي كوي إنان حسو قور كاستابا قلبيغو كحجي سنا حكمة هذا الكيغو حرير باتاهي عنبارو حماني كديرتاهو waxaad dadka iigu xiga qofkii ku xidhiidhiye xogtaada wanaagsan sida qofkii ku xidhiidhiye xogtaada wanaagsan sida xigmadda hadalkaygu waa xariir baad tahay cambaro xumaani ka dheertaho waxaad dadka iigu xiga qofkii ku xidhiidhiye xogtaada wanaagsan sida